bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wurida dhaqaalaha kobce kalin qaadayo kobka horumarku koru qaadayo kulmiyeynune wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa kormeer dadweynaha deegaanada gobolada Togdheer iyo Saraar kala qayb galay cudud taageero ay ku muujinayaan xisbiga talada dalka haya kulmiye kaltankiisa lixaad ee ololaha doorashada Soomaaliland deegaanada wasiirku maray oo kala qoryaale wadaamago gaatama kirir magaalo yar dhakool unuunley yiro fadhiyar waxay ahaayeen kuwa maanta ay daacad ka yihiin taageerada xisbiga kulmiye iyadoo guud ahaanba deegaanadaasina uu ka babanayay calanka muuqa dheer ee xisbiga kulmiye wasiirka tacabka badan geliyay deegaanadan kalsoonida shacabkana hantiye ee Cali Xasan Maxamed Cali Marexaan oo maanta wajigiisa ka muuqato guusha uu deegaanadani ka soo hooyay ayaa tilmaamay in gobolka Togdheer iyo Saraar bay yihiin kulmiye deegaanka magaalo yar oo ay dhalinyaro tiro badan haween iyo odayaal dhamaantood ku dhawaaqeen inay iska casilaan xisbiga wadani taageero weyn u hayaan xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiye waxay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cali Marexaan ay shacabka deegaankani ku tilmaameen mid wax badan oo ka maalo gashaday shacabka deegaankan iyagoo muujiyay kalgacayl baholyowga iyo dareenka ay ku lamaan tahay kalsoonida ay u hayaan xisbiga talada dalka haya kulmiye dowladan ina afmadoobe aad iyo aad bay taageeradeedu u ballaaran tahay boqolkiiba boqol waxay taageersan tahay xisbiga kulmiye codkooda inay siiyaan muuse biixi cabdi dowlada ina afmadoobe anagoo ah gurigdan oo ka mid ahayn markii hore xisbiga wadani waxaanu isla gaarnay inaanu ku kushubano xisbiga dawliga ah ee kulmiye marka dhalinyarta maanta juhdigoodii iyo dadaalkoodii iyo muruqoodii iyo maskaxdoodiiba isla soo garab taagtay xisbiga kulmiye waa inamada gartay halkay maanta joogeen iyo halkay maanta ay ka maqan yihiin ay ogaadeen in maslaxadooda ay ku jirto maanta halkii ay ka tirsanaayeen ee laga madan hufiyey qof adkaartii ila istaana ma sinna marka hore innagu insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa xisbi xaakimkaana oo isku ognahay marka waxaan leenahay badalo ilaahay naga hado gudoomiyaha degmada qoryaale ku xigeenkiisa iyo dadweynaha reer qoryaale ayaa iftiimiyay taageerayaasha iyo cududda xisbiga kulmiye ku leeyahay deegaankan hurayaan oo aanay cid ay la tartansiinayaan xisbiga kulmiye aanay jirin war saasoo maaha soo xisbiga soo kulmiye cod ka siin mayno soo abaal gudi mayno waxaan kale aan u sheegayaa wasiir waxaan kale ku sheegayaa waxa jira xisbiga wadani marka uu yimaado degmada maalinta ay u leeyihiin maalinta campaign-ka u leeyihiin waa lagu soo raraa degmada culus ee aan ugu soo talagalnay ee waliba aniga qura maaha qurba joog aad iyo aad u fara badan oo deegaamadeenna ka wada mid ah ayaa yimid marka hawlahan u nimina waxa weeyaan sida aynu inagu maanta kulmiye u wada noqon lahayn waxa soo dhami waxa weeyaan wax qabadka uu galiyay wasiirka maanta halkan inala joogay nagala soo qayb galay munaasabadani waa waxyaabuhu degmada qoryaale ka qabtay marka hore wadooyinku laba wada hadaad aragto ta toosan u baa la raaca wadada aynu raacaynaa marka hore waa tii toosneed imka calanka leh yaa wada la raaco toosana waxa weeye marka hore xusbiga ah inaynu raacano oo ku dhammaano oo kaynaga baydhsan ku soo duna waa mid waajiba waxaan kaloo halkan idinka taabanaya anigu de waxaan nin reer raaga waxa loo yaqaan xusbiga leeyaha wadani inaanaan wadani ahayn baanu halka ka cadaynayna saakana taasoo midhan baanu marayn waxaan idin sheegayaa
واتن هذا ودن يوحى ودن ساكا ودن ما أولين ودن أنا صامر ويكنا ماته هل كان بابا كوارك الكوية الريرة جوا ودن مدني هنا ميل ألا ميل نشوفنا بابا حنا كل مين وراد ورفت فارقي لبعض سنة كهر واو مستر ماينك ودني نيكا بوبا ليرا ما تقانان بوبا ونيكا أرجع نيكا حداي سووا يدي سومالي لا سيدا لوكو كم كرا سيدا وين سومالي ولا ميدو بكرتا عربي أرجع كحدا ويدي ما أنتنا على العصورة شودي سو سمايستي مركزات هالكن بس عبتو ميسان تاس بميل الكيلينا تاس أنا جو حنوك عيدر دارن وحكرا ومكين تاجر نوي موقتا سود وينت نوي موقتا مد باينو هدي حدافير بين كترنا مالين مهلكة باينو هدي حسبي ولا فرتو ودناها كوهيا إنكم من نقول دونك ودناها فرت كوهيا سوكو بصن ميسان كاركا كدوء حمر بيننا وين كبر بيرور كبر أنا سؤال أنا ومقدس ما كدوء بيننا هذي يسوون يبدلون نقول إحنا كدوء حمر بيننا wasiirka wasaaradda howlaha guud oo la hadlayay shacabka Qoryaale ayaa muujiyay in reer Qoryaale yihiin kulmiye Qoryaale xisbi kale looga baqi maayo inuu soo hawaysto looga baqi maayo waayo doorashadii u dambeysay ee Axmed Maxamed Silaaya lagu doortay waxaan malinayaa 14 cod ayuu xisbigii la oran jiray uu ka helay 7 sano xisbi الحاكم buu ahaa intii waxa la sameeyay iskuulo dugsiyo sare boordana wadooyin waxbarasho magaalada balaaratay ceelkii biyaha ma sha Allah حزب واحد كلا قبا أو حسوا دف لي دوران ما ينصو سيدا ما مركا واحد هذا عندك قاري هذا واد دقيق رجني إنه هو كود دقيق شبصنا هالكن هو كود دقيق شبصنا gudoomiyaha degmada Wadaamago siyaasi Axmed Cali oo waxle iyo Faarax Cali Yuusuf iyo xubno ku hadlayay afka deegaanka Wadaamago ayaa iyaguna muujiyay mugga iyo miisaanka kulmiye ee Wadaamago ah bay dhaxeen dhamaantood reer kulmiye intii lixaad ee campaign-ka inay soo boodaan wafti ka yimi galbeed ama magaalada Togdheer oo ah dadkii deegaankan asalka ku lahaa ama madaxdooda ahaa ama dawladda wakiilka uga ahaa ama kulmiye wakiilka uga ahaa ama dhinac ahaan la tirsan jiray aad bay sharaf iyo guul weyn noogu tahay inaad maanta halkan aad ku soo dhaweyno oo aad nagala qayb gashaan xafladan waxaan uga gudbayaa reer Wadaamago deeno in bayna hadal isku wadnay ballanqaadkeeni waynu bixinay gudoomiye xisbiga waynu siinay suldaankii waynu siinay deegaan ahaanna inaga ayaa in badan wada hadlaynay maanta taynoo hadhay waa gebagabadii iyo guntii iyo raadka intii ugu dambeysay waynu garanaynaa khamiista qura inoo hadhay khamiista waxa balankeenu yahay in aan qof magaalada ku hadhaa aanu si cad buu diiday marxaati bay lahayd isaga oo aan maanta xil haynin inuu intuu geedkan soo histaago indhaadeeg uu yiraahdo geedkan hoostiisaan dhagax dhigaya waxaanu leenahay naga xishood xirsiyo aad baanu ku ixtiraamnay bilaa caleen naga xishood kuma cayno waxba kuma geysano xisbigaad ku jirtan anagu waxbay oran mayno laakiin naga xishood baanu ku leenahay waxaan intaa ku darayaa Cali maxaa la yiraahdaa xarunta maamulka degmada iyo degmada bixinteedii iyo horumarinteedii iyo gaadiidsiinteedii iyo dhiirigelinteedii qayb uu ka qaatay xirsan maxad ka geysatay maanta markaad gudcuraado gudayana leedahay waxbaan dhigayaa waa inaad naga xishood waxaan leeyahay dadweynaha reer Somaliland waliba dadweynaha deegaamadan waxaan leeyahay ilaah baan idinku dhaarshay labada xisbiye labada ninku kala jiraan miyaa simaysaan baan idin leeyahay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa si weyn u iftiimiyay waxqabadka Wasiir Cali Xasan Maxamed Cali Marexaan isagoo barbar dhigay Xirsi Cali Xaaji Xasan 5 sano oo hogaaminayay qaranka waxa jirtay 70-nadii berigii ciidamadu ay dawladaha inqilaabayeen ayaa nin jenaraal oo aad loo jeceliyay baa Suudaan jiray dabeedna inqilaab buu isku dayay inqilaabkii waa fashilmay waa la xidhay waa la soo daayay
janankii wuxuu ku waashay intuu 2 kursi soo qaado inuu qofkii u yimaado yiraahdo kan ku fadhiiso markuu fadhiisto ayuu yiraahdo ka kaco kan kale ku fadhiiso taada janankii baa dhakhtarka la geeyo leeyahay malaa uu waalaya waalidii baa laga waayay taada ciidankii waa la dhex keenay isagoo aan ahayn generaal ayaa ciidankii buu rabaa inuu amro imika xirsi baa ka dhigan saaxiibkay xirsi ma wuxuu u haystaa inuu weli yahay wasiirkii awoodda badnaa ee madaxtooyada maaha xilku waa meerto gooraan hadna ahayn habeenna ahayn ayuu iscasilay isaga isbireeyey weli wuxuu u haystaa inuu dowladdii xukumo markuu dhagax dhigaayo waddada 45 kilomitira muxuu yahay waa xusbi mucaarida buu ka tirsan yahay teetalaan jirin buu ka haystaa dhaqaale uma hayo waxa inuu heli dooniyo in kale mooga markuu geedkan inoo dhigay horta aqligeenu ku ciyaaraya generaalka amarka jecel ayuu horta inankaasi yahay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ayaa la dardaarmay shacabka intii ka dambaysayna degmadii iyo gaadiidkeedii iyo maamulkeedii iyo guryaheedii mar walba la soo raaciyay iyadoo caynkaa tahay waxaan maqlayay $5,000 oo dhigta loo saarayo odaygii cirro habeenkii dhaweeda halkan qoladii dhigta wuxuu saarsaari jirtay ee barbala lahaa taadhe marbala lahaa sidaa dheh khudbadii marba dhagaa laysu saari jiray $5,000 baa la sheego waa kii cabdi xuseen dheere iyo axmed waxaliya laashantii ku dhawaa la waayay laakiin xitaa haddii la helo waa marubad bay wiil ku dhalaysa meesha waxaasoo kacaba loo galay waxaasoo halgana tirsanaysa ee taariikhda intaas 9 habeen intaad soo guurtay 5,000 baad meel ku tuuraya sidaa cod lagu heli maayo allahu akbar waxaa ka horeeya ordayndaanad shan ku soo tuuray horta ninkii maalin maad ahayd horta kii maalin maad ahaydee taariikhdee baad lahayd maxaad somalilan gashatay maxaad deegaankan gashatay maxaad walaamagoo gashatay maxaad tacab dalka ku leedahay somalilan intaad joogtay maxaad qabatay annaga odagan cabdiraxmaan cero 2 xildhibaan baan 2 kushintii baa nala wada doortay أنا تقدر بالله يقدر تقدر صاحب بالله يقدر وتوجيه على المرضى ستيشن يري وقاري يري وحيري ومربع سوت فورتي مربع واحد كله فورتي طول كصاحب بالولي يا حلو إذا وحلو كويسكم قفك واحد يرضى طبعا لك واحد يركسيه وواحد بدل كسيه maanta iyo deegaanadan uu marayay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland ayay dadweynuhu ahaayeen kuwa u heelan xisbiga talada dalka ay kulmiye Absaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco